waxaa jirta laba shay ee dhalinyarada badankood markii ay soo kacayaan ama ay doonayaan in noloshooda ay bedelaan ama ay qof ku soo biiro oo kale ee badanaa isku qaldaan taasina waxay tahay soo jiidashada iyo kasbashada haddii aad damacday qof inaad soo jiidatid way adkaanaysaa qofkaasi in noloshaada uu ku soo biiro soo jiidashadu waxay sababaysaa in naftaada ay dulmi la noolaato ama ay ku lunto laakiin kasbashada waa wax ugu fudud ee qofka bini'aadanka ah uu isticmaalo xitaa kasbashada haddii aad ku dadaashid naftaada ayaa ku horumarayso haddaba qofka haddii ay waxayda ka dhaxeeyaan aad doonaysid inaad kasbatid meelaha laga kasbado waa inaad og tahay afar meel baa qofka bini'aadanka laga kasbadaa waa dhigaha waa indhaha waa maskaxda iyo qalbiga haddii aad afartaasi isticmaashid si aad qofkani u kasbatid naftaadana way ku horumaraysaa qofkina hadduu qof waxgarad yahay noloshaada wuu kusoo biirayaa sidee markaa qofkani afarta meel aan sheegay looga kasban karaa horta dhigaha qofka marka aad ka kasbanaysid waa inaad hadal wanaagsan ku hadli kartaa fikir wanaagsan soo bandhigi kartaa maskaxdana qofka marka ka kasbanaysid habba waxay ku xiran tahay beecada aad ku sugan tahay iyo xaaladda aad ku sugan tahay indhahana qofka marka aad ka kasbanaysid tusaale waxa uu soo qaadanaya badanaa fiidiyoyada waxa u badan tusaale inaan soo qaato laakiin tusaale waxa uu soo qaadanaya xiriir qof marka aad la leedahay oo kale oo date aad sameynaysid qofka markii kuugu horeysa aad la kulmaysid ama aad doonaysid inaad ballan la samaysid badanaa waxaa dhacda marka qof baa la kulmaysaa ama dhalinyaro wiil ahoo ama gabar ahoo kadibna kulanka koowaad kulanka labaad waxaa laga yaabaa inuu adkaado halkii wax ka qaldan yihiin waxay wax ka qaldan yihiin qofkani indhihiisii baada kasban badanaa waxaa dhacda dhalinyaradu markii ay soo kacayaan qofka markay la ballamaan waxaynu ballannaa halka saac habeenimo oo kale waxaa dhacaysa marka qofku wiilka waxaa laga yaabaa in casir dheere uu magaalada sii tago magaalada markaa sii tagtid way adkaanaysaa marka qofkan indhihiisa saa ku kasbatid marka aad la kulmaysid waayo casirkii marka aad labisatid oo aad qubaysatid barafuun isku buufisid magaalada markaad tagtid inta magaalada usii socotid waxaa laga yaabaa in qoraxdii kugu dhegto aad dhididid boor badanna oo ku fuula kadibna waxaa laga yaabaa oo kale xataa markii xilliga waqtiga la gaaro inaad istiraado weli waqti baa haysataa kadibna marka saacadda aad fiirisidba ay waqtiga kugu yaraato orod meesha ku tagtid kow waxaad tegaysaa adoo dhididay laba waxaad tegaysaa dhiigga oo kacsan saddex waxaad tegaysaa maskaxdaada oo culays saaran yahay degdeg iyo waxaas aad dareemaysid afar waxaad tegaysaa iyadoo oo barafuunkii waxaa laga yaabaa barafuunadu waa kala qaalisan yihiin in barafuunkiiba aad isku soo buufisay hawadaba ay daftaba saas oo ay tahay qofka markaa u tagtid maskaxdaadu waxaa ka buuxa degdeg iyo culays baa ku saaran oo aad ku mashquulsanayd waqtiga lagula ballamay ma ka gaari doontaa haddaba qofka saa indhihiisa u kasbatid habeenada aad ballanta leedahay ama aad qofka doonaysid inaad kasbatid marka hore waa inaad ku dadaashaa inaad qorshaysatid aad u qorshaysatid qofkaan aad la ballamaysid inuu yahay qofkaan qof aad doonaysid in noloshaada uu kusoo biiro laga yaabo qofkaan mustaqbalkaaga inuu noqdo xitaa haddaad doonaysid qofkaan inaad indhihiisa kasbatid taasi waxay xataa kuu sahlaysaa inaad tababaratid oo aad u tababaratid inaad ka fikirtid qaabkaad adiga iska dhigi lahayd badanaa habeenka aad ballanta leedahay oo kale si aad qofkaani indhihiisa u kasbatid waa inaad galabka guriga ka bixin si dhiigaagu u qaboobo maqribka markaad tukatidna waa inaad qubaysan kartaa barafuun isku buufi kartaa teda kalena waxaa jira barafuuno yaryariis oo qofka bini'aadanka jeebka uu ku qaadan karo xaleef ah qofka xataa markaa u dhowdahay dhacdhacda isku siisid weli barafuunku waa kaa soo carfaya waxaa jirta saabuun inkastoo hadda aysan wanaagsaneyn in la isticmaalo waayo qofka bini'aadanka ah wixii waa inaad raadisaa horta waxay ka samaysan tahay iyo waxa ay muhiim u tahay saabuun waxaa jiri jirta marka maris la yiraahdo oo haddii aad wejiga ku dhaqatid aad habeenkii dhalaalaysid laakiin waxa ay sababaysaa in maqaarkaagu uu qaleel noqdo marka dambe dufanku uu ka dhammaado qofku maalinba maalinta ka dambayso caqligiisa wuu sii siyaadaya maskaxdiisa way sii kobcaysaa marka waxyaabo kale waxaa jira marka haddii aad wejiga marsatid oo kale ama aad ku dhaqatid oo kale aanan dhibaato u geysanaynin wejigaaga ama maqaarkaaga oo aanan qaleel noqonaynin waayo noloshu maanta way hormarto waxaa jira kareemo tiro badan baa lasoo saaray waxyaabo badan baa jira marka qofkaani marka adoo carfaya u tagtid adoo degan oo qabo oo gurigaaga hadda kasoo baxo hurdo kasoo toosay oo soo qubaysa aad u tagtid maskaxdaaduna fresh tahay waxyaabo badan baa qiimeynaysaa qofkaani xataa waxaad qiimeynaysaa siduu u fikirayo iyo siduu yahay iyo inuu noloshaada u qalmo laakiin haddaad isbartiinka soo martid oo kale ama garoonka banaadir stadium ama koonis ama garoon uun magaalada aad ku noosho oo kale kadibna qoraxdii ay kugu soo dhegto saad ciyaarta u daawanaysa midabkaagu wuu isbedelaya xataa madow saa'idaa sii noqonaysaa wax kaloo laga yaabaa kubaddii in agtaada kusoo dhacdo kadibna kubaddii aad laadid oo kabihii boorkaa noqdaan adiga dhan waxaa laga yaabaa inaad u muuqatid boo xoogaa jacdad qof macnaha dee hadda sariirta hoosteeda dhar laga soo saaro oo kale ama joodariga hoostiisa dhar laga soo saaro adiga dhan waxaa noqonaysa qof kale qofku markuu ku arko laga yaabo inuusan la kulankaagaba xiiso dambe uusan u yeelan laakiin markaad adigoo fresh ah u tagtid oo barfuun ka carfaya wejigiisa liisho u muuqda jawi degan qabow ku jira qofkan wuxuu jeclaanayaa habeen walba ama mar walbaba inuu kula kulmo kulanka dambe inuu xiiseeyo wili gabar ka doonto oo mar walbaba dharka hoose ha ku tira badnaada dharka hoose waa kuwa ku dareensiinaya qanacsanaanta naftaada ah
tusaale ahaan haddii aad dhar badan oo dusha laga xirta haysatid dharka hoosena ay kugu yiryihiin sida garamada buumiyaasha oo aad hal xaba ama laba xaba ka leedahay si walbo dharka kale ee tirada badan u gashatid kuma qancaysid laakiin haddaad 4 shay kaliya dharka kore ka leedahay dharka hoosena aad ka leedahay 8 iyo 12 ka badan haddii garan laga hadlay 8 garan midabka doonan ha yeeshaan hal xabo cusub marka aad gashatid waxaad dhacaysa dharkan kale haddii hal xabo xataa ahaayeen marka aad gashatid qanacsanaan baa dareemaysa sababtuna jirka dharka hoose ayaa ah kuwa nadiifa oo jirkaaga ku qancayaan muhiimadda dharka loo xirtana ma aha dadku inay ku qancaan ee waa adigu inaad ku qanacdid waxa aad xiran tahay haddaba qofka bilaadanka ah waa kasba kartaa ee ma soo jeedi kartid haddaad damacdo inaad soo jeediso qofkaani oo noloshaada u soo jeedisid oo aad samaysid waxyaabo aad si ku farxayo waxyaabahaasi waxaa laga yaabaa inaysan qofkaani uusan ku qancin waayo bilaadanka baahidooda ma dhammaado maalin walba baahidooda way taagan tahay laakiin inta aad qofka soo jeedi lahayd marka hore waxaa bartaa qofka bilaadanka ah sida loo saameeyo inta aad ku baran lahayd qofkaani inuu adigu kuu soo jeesto saamaynta baro halkee laga saameeyaa qofka madhigaha laga saameeyaa maqalbiga laga saameeyaa maskaxda laga saameeyaa mise indhaha laga saameeyaa qofku haddii aad isku meel ku nooshihiin badanaa waxaad ku dadaashaa qaabkaaga inaad dhistid oo adii faa'iido kuu tahay haddaad qaabkaaga dhistid dhisitaanka lagama hadlayo inaad jim tagtid dhisitaanka waxay tahay qaabka aad u muuqanaysid haddii uu kaa fog yahana dhegihiisa qofku inaad kasbatid oo waxaad ku kasbanaysaa hadalladaada inaad qurxisid ujeedadaaduna ay cad tahay maskaxdana badanaa qofku waxaad ka kasban kartaa habba sida aad group u tihiin ama aad iskugu xiran tihiin ama aad adigu hawshaada way u ballaaran tahay haddii aad waxyaabo badan isku xirxiraysid hadafkaaguna uu ballaaran yahay qofkaasi maskaxdiisa waa kasbanaysaa haddaad mar walbaba hadafkaaga ka hadlaysid waxaan u maleynayaa videogan inaad ka heshay haddii aad ka heshay asxaabtaada la wadaag haddii aad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa subscribe wixii fikirkaaga aha commentiga waad igula wadaagi kartaa meel walba dunida ka joogtaan allah idin xifdiyo waa saaxiibka shaahid beesani oo ku dhahaya asalaamu calaykum